wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland ayaa gobolka Togdheer si rasmi ah uga daafurtay qodaalka fasalka guga ee beeraha gobolka Togdheer. Munaasabaddan lagu daafurayay qodaalka wax soo saarka dalagga beeraha ayaa ka qabsoontay xarunta wasaaradda beeraha ee gobolka Togdheer, waxaana ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer iyo mas'uuliyiin ka socday wasaaradda beeraha. Dhammaan beeraleyda gobolka Togdheer, isuduwaha wasaaradda beeraha ee gobolka Togdheer Maxamed Cabdi Maxamuud Gurey oo ugu horeynba halkaasi ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyay kulankan lagu daafurayay wax soo saarka dalagga beeraha ee gobolka Togdheer. Waxa uu sidoo kale beeraleyda u soo jeediyay inay kobciyaan isla markaasina ay kor u qaadaan wax soo saarka dalagga beeraha. waxaynu saaka daafuraynaa oo bilaabaynaa qodaalkii fasalka guga 2021 waxa weeye beeri baynu bilaabaynaa qodaalkoodii 23 meelood baynu ka bilaabaynaa oo la beeri jiray. maanta waa maalintii raashinka weeye, haruurkii baa laynaga rabaa inaynu beerno, galadii baa laynaga rabaa sidaynu beeri jirnay, digirtii, sisintii. waxaynu kaloo maanta ku kordhinaynaa ciddii awoodda qamandi oo ka hawl yar. haddaanu wasaaradda beerahanay in dadaashaan oo annaguna aanu aqoon iyo cilmiba aanu diinimaadno idinku hagno xilliyada. qaar ka mid ah beeraleyda gobolka Togdheer oo halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay mashaariicdan lagu kobcinayo wax soo saarka dalagga beeraha. waa kuwan oo ka hadlay arrintaasi sida wax looga soo bixiyo, sida wax looga soo saariyo, sida dayacantaba waa naqaana. imikana de wax yaqaan wax looma sheegay dalka waa la soconaa duruufihiisa, waa sarcaynaa, waa dadaalayna. dhaqaalihii wadanka maanta waxa weeyaan wuxuu maraya halkii ugu hooseysay, laakiin waxaynu kaga kaban karnaa iyo aynu ku soo kicin karnaa iyo aynu dhaqaale abuur ku samayn karnaa iyo aynu shaqo ku samayn karnaa waa inagoo wax soo saarkeena iyo maxay hayto iyo beeraheena dib u tabcana. alxamdulillaah waxa weeyaan de beeraha horena waanu u beeri jirnay, iminkana xilli waqtiyeedkeedii ayay timid. gacantaanu ku haynaa waan bilowno waa beeraynaa ilaahay xamdigii. cid wal oo kalena waxaan ku boorinaynaa in la beerto oo dhulka wax lagala soo baxo. xoolo badan baa galiyay dhulka beer laba beerood oo waa baan midna shaleelo ku leeyahay midna halka burco ku leeyahay. xoolo badan baa geli riigag baan geli xoolo badan baa ku baxay. solar baan keenay, biyo macaaneyn baan keenay tawadaamago, ciidankii shaqaalii baanu keenay. dhulku wuxuu u baahan yahay in laga shaqeeyo. waan taageerayaa, waan soo dhawaynayaa. aad ha loo shaqeeyo dadkan iyo gobolkana wax lala qabto. gabagabadii munaasabadaasi waxaa soo afmeeray xogayaha gobolka Togdheer Cabdiraxmaan Aadan Xaaji Ibraahim, waxaana ka mid ah hadaladiisii. waxaan ku ammaanaynaa isuduwaha wasaaradda beeraha firfircoonida dheeraadka uu hayo beeraleyda. wax la beerto dhulkana wax la gashado ayaan kula barbar taaganahay. waxaan leenahay dhammaantiin aynu isu garab taagno sideen wax u beeran lahayn, waayo waxa la yiraahdaa qolada beeraleydu way ka cimri dheer tahay qolyooyinka kale, sababtoo ah ciddii wax gashtay dhulka uun baa hadhow manfaciida leh. Maxamed Yuusuf Cabdullaahi Maxamed Wardi, warbaahinta qaranka Somaliland, Burco.